kulanti waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinku soo gudbinaa wararkii u dambeeyay ee la xiriiray dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkana waxaan ku dul istaagi doonaa wararkii u dambeeyay ee laga helayo bariga dhexe iyadoo xaaladda bariga dhexe ay noqotay mid faraha ka sii baxday isla markaana qaybo kamid ah wadamada bariga Afrika iyo sidoo kale wadamo kamid ah Khaliijka Carabta ay ololayaan isla markaana gantaalo ay la bartilmaameedsanayaan Iran xogii u dambeeyay halkan idinku soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkan fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo taayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo sarsi u gaar asxaab badan oo ku maasanta daabashadaada aynu ku bilaabno xaaladda bariga dhexe ayaa ka sii dartay iyadoona Iran ay sii wado duqeymaha iyo sidoo kale bartilmaameedyada saldhigyada militariga ee Mareykanka uu ku leeyahay qaybo kamid ah bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta Iran ayaa tan isaakay waxa ay waday weeraradeeda iyadoona bartilmaameedsanaysay goobo muhiim u ah wadamada Khaliijka Carabta sida isku taga Imaaraadka Carabta Qatar Kuwait Bahrain iyo sidoo kale wadamo kale oo saldhigyo militari ugu yaala dalka Mareykanka isla markaana ay weerarada looga soo qaado halkaasi Iran ayaa mar kale waxay wacd ay ku martay in dhulka ay la dari doonto gobolka bariga dhexe xiisaduna ay noqon doonto mid cirka isku sii shareerta iyadoo Iran dhinaca kalena ay wajahayso eedeemo culus ee ku aadan in wadamo ka tirsan Afrika iyo sidoo kale Khaliijka Carabtaba ay Iran ay ku eedeynayaan weerarada ay ka fulinayso qaar kamid ah wadamada Khaliijka Carabta waxaana dawladaha Iran eedeynaya kamid ah madaxweynaha Koonfur Afrika oo ku baaqay in Iran ay ka waanto falalka xadgudubyada ay ka sameynayso wadamada ee Khaliijka Carabta iyadoona ugu baaqeen inay ka waantoodo isla markaana bariga dhexe ay ugu baaqeen in xaaladda ay ka dhigaan wada hadal isla markaana ay gantaalada iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan ay ka waantoobaan sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa war qoraal ay soo saartay waxay ku cambaareysay weerarada ay Iran ay ka fulisay wadamo kamid ah Khaliijka Carabta iyadoona dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tilmaantay wax laga xumaado waxayna sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabsatay in ay cambaareyso falkii lagu dilay Ayatollah Ali oo ay weerarkaasi ay qaadeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya marnaba aanan soo hadal qaadin duqeynta lagu dilay hogaamiyihii ugu sareeyay ee Iran Ayatollah Ali inkastoo booskiisa ee xilligan shakhsi kale si ku meel gaar ah loogu sii magacaabay si ay shaqada halkeeda ugu sii socoto Iran waxay wacd ay ku martay in aysan jiifan doonin ee wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe tan iyo qof Iran ka tirsan inta ay nolosha ku jirtana isticmaali doonaan hubkoodii ugu cuslaa isla markaana kuwooda ugu ridida dheer ay isticmaali doonaan diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay Iran ayaa dul haawanaya qaybo kamid ah wadamada bariga Afrika wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadamada Khaliijka Carabta kuwaas oo ay duqeymo farabaan ay ka geysanayaan Iran waxa sidoo kale duqeymaha ee Iran ay la bartilmaameedsadeen Oman Qatar isku taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wadamo kale iyadoo la arkay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada heerka khasaaraha uu la eg yahay iyadoona ay jiraan dhimasho dhaawac sidoo kale burbur hantiyadeed inkastoo wadamada Khaliijka Carabta oo ay beegsatay Iran aysan wax faahfaahin bixinin khasaarihii dhabta ee ka soo gaaray haddana waxay mar walba ay sheegaan inay ka hortageen gantaalo ay Iran ay ku weerar rabtay iyadoona sidoo kale sheegeen inay ku jiraan difaac adag oo iskaga hortagi doonaan Iran weerar kasta ay ku soo qaado qaar kamid ah wadamada Khaliijka Carabta ayaa waxa ay ku dhaarteen in ay dhankooda ay duulaan ay qaadi doonaan hadii Iran aysan ka fiirsanin talaabooyinka gurcan ay qaadayaan waxayna sheegeen in Iran hadii mar kale ay weerar ay ka fuliso qaar kamid ah wadamada Khaliijka Carabta ay iyagana dhankooda ay weerar ay ku qaadi doonaan isla markaana ay bartilmaameysan doonaan goobaha Iran muhiimka u ah gaar ahaan kuwa shidaalka iyo sidoo kale kuwa saliidda iyo sidoo kale meelaha ay ku keedsan yihiin hubka nuclear-ka inkastoo wadamada Carabta qaarkood aysan awoodin in Iran awood ay kula hortagaan maadaama Iran ay tahay wadanka Carabta ee kaliya ee haysta hubka ridada dheer iyo sidoo kale kuwa balaastikada isla markaana ay yihiin wadan isku tashaday oo aanan marnaba aan jecleen in la soo fargashado Iran waxa la og yahay in ay weerarka
Iiraan haddii la dadaansado waxaa la og yahay in weerarada ay fuliyaan ay noqon doonaan kuwo adduunka oo dhan ay ka qayliyaan iyadoo hadeertaanba ay bilaabatay qayladhaan kasoo yeeraysa qaar ka mid ah wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada ee khaliijka carabta ee sida gaarka ah ee Iiraan ay duqeymaha ugu fulisay waxayna Iiraan ay sheegtay ilaa iyo hogaamiyaasha ugu sarsareeya ee wadamada aan muslimka ahayn iyo sidoo kale kuwa khaliijka carabtaba ay laayi doonto iyadoona sheegtay inay ugu argudi doonaan hogaamiyaashii ugu sareeyay ee Iiraan ee duqeynta lagu dilay oo ugu horeeyo hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Ayatollah Ali waxay Iiraan xilligan ay ku jirtaa borordiiqa muddo 40 maalmood ah iyadoona dagaalada iyo weerarada ay barbar socdaan oo ay ku dhawaaqeen in marnaba aysan joojin doonin ilaa iyo ay u argudi doonaan waxaa sidoo kale dibadbaxyo waaweyn ee ka dhacaya qaybo ka mid ah wadamada khaliijka carabta ee taageersan ee Iiraan oo ay ka mid tahay Pakistan kuwaasi oo ka xumaaday dilka Allah u naxariistay Ayatollah Ali iyadoona sidoo kale ee ka xumaaday weerarkii guracana oo ay Israa'iil sidoo kale Mareykanka sida wadajirka ah ay ugu fuliyeen gudaha dalka Iiraan halkaasina uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac sidoo kale burbur hantiyadeed Iiraan ayaa horay waxaa loogu dilay hogaamiyaal sarsare inkastoo Iiraan ay tahay dawlad adag haddana aanan jiifanin hawshana meesheedii ka sii wada haddana maanta waxaa la dilay hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi isla durbadii maanta waxa ay magacaabeen hogaamiyaashii la dilay kuwa booskooda buuxiyo si shaqada aysan u habsaamin maadaama Iiraan iyo sidoo maadaama Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay u xaqal taagayaan in Iiraan ay dib ay u gurato si ay dagaalka iyo sidoo kale hubka nuclear-ka ay u joojiso balse Iiraan ayaana marna u muuqanin in talaabooyinka ay qaadayaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay awoodooda ay wiiqi karaan iyadoona ku tilmaantay in marnaba aysan dib u guraneynin oo dagaalkii ay kula jireen wadamada aan muslimka ahayn ay horay u sii wadi doonaan isla markaana duqeymahoodii ay la bartilmaameedsan doonaan saldhig walba ee Mareykanku uu leeyahay iyadoona sidoo kale sheegeen in aysan kaniyo jabi doonin dagaalka ay kula jiraan wadamadaasi dilka Ayatollah Ali waxa ay ku sheegeen inuu ahaa shakhsi aad muhiim u ahaa balse booskiisa ay ku bedeli doonaan shakhsi kale oo booskaas u buuxiya inkastoo goor horeba si ku meel gaar ah shakhsi loogu magacaabay Iiraan waxaa la og yahay in ay weerarka Iiraan haddii la dadaansado waxaa la og yahay in weerarada ay fuliyaan ay noqon doonaan kuwo adduunka oo dhan ay ka qayliyaan iyadoo hadeertaanba ay bilaabatay qayladhaan kasoo yeeraysa qaar ka mid ah wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada ee khaliijka carabta ee sida gaarka ah ee Iiraan ay duqeymaha ugu fulisay waxayna Iiraan ay sheegtay ilaa iyo hogaamiyaasha ugu sarsareeya ee wadamada aan muslimka ahayn iyo sidoo kale kuwa khaliijka carabtaba ay laayi doonto iyadoona sheegtay inay ugu argudi doonaan hogaamiyaashii ugu sareeyay ee Iiraan ee duqeynta lagu dilay oo ugu horeeyo hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Ayatollah Ali waxay Iiraan xilligan ay ku jirtaa borordiiqa muddo 40 maalmood ah iyadoona dagaalada iyo weerarada ay barbar socdaan oo ay ku dhawaaqeen in marnaba aysan joojin doonin ilaa iyo ay u argudi doonaan waxaa sidoo kale dibadbaxyo waaweyn ee ka dhacaya qaybo ka mid ah wadamada khaliijka carabta ee taageersan ee Iiraan oo ay ka mid tahay Pakistan kuwaasi oo ka xumaaday dilka Allah u naxariistay Ayatollah Ali iyadoona sidoo kale ee ka xumaaday weerarkii guracana oo ay Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka sida wadajirka ah ay ugu fuliyeen gudaha dalka Iiraan halkaasina uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac sidoo kale burbur hantiyadeed Iiraan ayaa horay waxaa loogu dilay hogaamiyaal sarsare inkastoo Iiraan ay tahay dawlad adag haddana aanan jiifanin hawshana meesheedii ka sii wada haddana maanta waxaa la dilay hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi isla durbadii maanta waxa ay magacaabeen hogaamiyaashii la dilay kuwa booskooda buuxiyo si shaqada aysan u habsaamin maadaama Iiraan iyo sidoo maadaama Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka ay u xaqal taagayaan in Iiraan ay dib ay u gurato si ay dagaalka iyo sidoo kale hubka nuclear-ka ay u joojiso
balse Iiraan ayaana marna u muuqanin in tallaabooyinka ay qaadayaan Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay awoodooda ay wiiqi karaan iyadoona ku tilmaantay in marnaba aysan dib u guraneynin oo dagaalkii ay kula jireen wadamada aan muslimka ahayn ay horay u sii wadi doonaan isla markaana duqeymahoodii ay la bartilmaameedsan doonaan saldhig walba ee Mareykanku uu leeyahay iyadoona sidoo kale sheegeen in aysan kaniyo jabi doonin ee dagaalka ay kula jiraan wadamadaasi dilka Ayatullaahi Cali waxa ay ku sheegeen inuu ahaa shakhsi aad muhiim u ahaa balse booskiisa ay ku bedeli doonaan shakhsi kale oo booskaas u buuxiya inkastoo goor horeba si ku meel gaar ah shakhsi loogu magacaabay xogii u dambeeyay halkan ayaan ku soo gabagabeynayna wixii warar ay ku soo kordhina muuqaaladeena xiga ay idin kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigan balelkan fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo taayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo sar si u gaaro asxaab badan oo ku maasantay daawashadaada